maalin dhowta maqaalan akhriyey oo beri hore wuxuu eegyahay saddex nin buu eegyahay. ninka koobaad ismaaciil cumar geelle ogyahay waa cali cabdalla saalax, madaxweynihii yamanta. ninka labaad waa ziin alcaabidiin, waa ninkii xukumayay waddanka tunis. ninka saddexaad ismaaciil cumar geelle uu eegyahay maaragtay madaxda wadanadan inagu meersan afrikaanka ah uu ku daydo waxa weeyaan waa ninka eritrea xukuma, waa asiyaasi Afwerqi. halkuu uga kala eegaya saddex nin baa inoo sheegaya. qabdada xadiidiga ah ee ummadda lagu hayo, ee neefta lagu dhajinayo, ee dadkii gaajo lagu dilay, ee la laynayo, waxa la wuxuu uga eegyahay Afwerqi. dhinaca qabyaalistiga iyo dadka inaa lagu qaybiyo reer, oo reerahana la kala laaluusho, oo la kala xado, oo la kala waalo, wuxuu uga eegaya cali cabdalla saalax. lacagtana iyo islaanta iyo reerka iyo gacalnimada iyo reerka iyo lacagta in loo qaybiyo baanan badan la sameeyo beena, dadka lacagta le la xado iyo kana wax la siiyo, si la kala garan waayo lacagtii xalaashii iyo xaaraantii. Zayn alcaabidiin buu uga gaadhada, uuna sheegay anu Zayn alcaabidiin baa iyo model buu. marka saddexdaa nini ee aan nii sheegay waxay ku dambeeyeen. dowladda Eritrea waxa dhahdaa waa dowla khaarija taariikh, taariikhda way ka baxsan tahayba, meelay ku nooshay context uma leba. Jabuutina waa khaarija taariikh. Jabuuti marka laga hadlay waxaa looga hadlaa Ethiopia maxaan u qabanaa? Jabuuti waa sii marnaa, waa dikad la sii maro la soo maro, isna sabab ka sheekeeya. Zayn alcaabidiin wuxuu ku dhammaaday sidaad aragteen harab Ismaaciil Cumar ku socotaa. dadku waxa ma akhriyaan, laakiin anigu sidaan u arkayo inaad maaragtay mikrofon hor yaallo ayaan u arkayaa inuu Ismaaciil Cumari harab ku dambayn doono. arrinta ugu dambaysa saddexaadii waxa weeyaan cali cabdalla saalax markii aqalka loogu tagay, aqalkiisa markii la faqay waxaa loogu tagay milyaar dahab, diinaar, maaragtay dirhamkii kuwaitigii, dirhamkii waxaan jeedaa imaaraadkii, riyaalkii sacuudigii, farankii, waxaan jeedaa erogii, doolarkii Canada, lacagtii oo meelay kala qabsatala. aqalka ina gelin waa saas. marka ikhwaanii fillaah, maxaa yeelaa waqtigiiba aad ila fogaaday. haddaan aan galo mawduuca aan soo diiyey ah maada nakhaaf, maxaan ka cabsanaynaa, wa kayfa nunqidu lbalad, see waddanka u badbaadinaa, maxaanan ku badbaadinaa. waqti fiican bay naga qaadan, waana meesha aan u socdo ee dhuuxa ahayd. usbuucan dhexdiisa yaan mawduuca isku soo noqonaynaa. intaan isku soo noqon doono waxaan iga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.